marka ay musharaxiintu ay soo sharxaan waxay sheegaan wax fara badan oo dhammaantood tilmaamayo inay dalka barwaaqo gaarsiin doonaan, inay tiirar kala duwan oo ay tilmaamayaan. haddana marka uu kursiga ku fadhiisto oo uu ku guulaysto wixii uu sheegayay waxba kama jiraan, waxna kama qabto, hadday tahay amni, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay siyaasad arrimo dabadeed. adiga maxaad uga duwan tahay dadkaas? ma kaa horreeyey madaxweyneyaal badan aan soo aragnay. dadka soomaalida waxay ku yidhahdaan waxaan idin qabanaynaa kaas, waxaan idin qabanaynaa kaas, waxaan idin yeelaynaa kaas, haddana waxba kama jiraan. markay meesha ku fadhiistaan waxii ay doonaan ay sameeyaan. adigu maxaa kaga duwan tahay cumar? waa run ahaantii waa run oo waxaa sheegtay waa run waayo siyaasi kastoo soomaaliya oo soo maray waddankan wuxuu noqday beenaale, wuxuu noqday corrupted, wuxuu noqday dulmilow, wuxuu noqday cadaalad daraawe. marka su-aashaasi waa su-aal meesha ku jirta. anigu waxaan qabaa dadkaas oo dhan hogaamiyayaal ma ahayn. hogaamiyenimaduna waa talanti ama hibe ilaahay bixiyo. qofka hogaamiyahaahi wuxuu ka duwan yahay dadka caaliga, wuxuu ka faana xumanta, wuxuu ka nasahan yahay beenta, wuxuu ka nasahan yahay corruptionka, wuxuu ka nasahan yahay wax kasta oo xumaana, wuxuu ka nasahan yahay takrifalka, wuxuu leeyahay dareenka bulshada, wuxuu leeyahay aragti ka fog maantayto iyo maantay iyo danaha gaarka ah. anu marka waxaan idhahdaa waxaa u dhexeeya farqi maamule iyo hogaamiye, labay kala tahay. dad badanoo na soo maray waxaa laga yaabaa inaysan xataa maamulayaal munaasab ku ahayn, oo ay ka faa'iidaysteen dayacaadda iyo xaaladii jirtay unbay ku soo baxeen maahane. hogaamiyeyaal dhab ah oo mujtamac dhan ama bulsho dhan bedeli kara oo horseedi kara horumar bulsho may ahayn. waa ku raacsan. anu marka waxaan isleeyahay dadkaas waxaan uga duwan tahay xagga fikirka, waxaan uga duwanahay xagga aragtida, waxaan uga duwanahay xagga higsiga aan rabo oo dowladeed, waxaan uga duwanahay daacadnimada, waxaan uga duwanahay backgroundka wax la yihahda ama meeshaan ka soo jeedo. markaan ka hadlayo siyaasiyiinta hadda u sharaxan xilka waxaan idhahdaa dhammaantood 3 kooxood bay ka soo jeedaan, say u badan yihiin 80% ama 90. raggii kaadiriinta kacaanka ahaa oo aragtida kacaanka leh oo raadinaya dowlad keligood ay leeyihiin, dowlad ayaga maamushaan, wixii ka soo horjeeda in la dilo, wixii ka soo horjeeda in la caayo, wixii ka soo horjeeda in la laayo. iyo rag hogaamiye kooxeedyadii abuurmay dagaalkii sokeeye ka bacdi ka soo jeeda oo aniga iyo reerkayga iyo adeerkay iyo isbaaradeyda maan aragti kale aan lahayn. iyo raggii maxaakiimtii iyo xarakaadkii islaamiga ahaa ka soo jeeda oo iyaguna aragtidooda ku salaysan tahay kooxdooda oo keliya aan aaminsanayn wax la wada leeyahay oo ummaddu wada leedahay oo dadka ka dhexeeya. marka waxaan isleeyahay waxaan u baahannaha maantayto 3daas santuuq aragti ka bannaanka ah. waxaa la soo gaara maantayto waktigii dadka soomaaliyeed ay hiigsan lahaayeen dowlad casri ah, ay ka dhex dooran lahaayeen waxa tirada badan oo yaacaya, dadka aragtida saxaa leh, dadka fikirkaa saxaa leh, dadka aan ka soo jeedinin dadkii fashiliyey dowladnimada soomaaliyeed oo caqabadda haddana weli ku sii ah. marka runtii isbeddelka loo baahan yahay maahan 2 qof oo isku xeero ku jira ama isku santuuq ku jira in la isku bedelo, laakiin waxaan u baahannahay aragti ka qoto dheer wixii hore la soo maray, hogaamiye leh inaanu ka dooranno dadka. waxaana isleeyahay maantayto inta aan aqaanay maanta oo ordaysa aragti ahaan iyo fikir ahaan iyo quality ama tayadii laga rabay hogaamiyo inaan dheerahay dhammaantood.